Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ugu horreyn dhammaantiinba si weyn baan idiin salaamay. Muuqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan ku soo koobo qaybta loo yaqaano color correction-ka ama muuqaalada sida kalarkooda loo saxo. Marka waxaan isku dayi doonaa inaynu ku soo koobno muuqaalkan. Waxaan dooran doonaa new project. New project markaan doorto, waxaan ula bixi doonaa color correction ayaan siin doonaa. Then waxaan ku dhufan doonaa halkay ku qoran tahay create. Waayahay qaybta create markaan siiyo qaybta waa iska soo xiri doonaa. Okay, default ahaan adiga saasuu kugu muuqan doonaa. Waxaynu soo gashan doonaa marka muuqaalada ugu talagalay aynu ku practical garayno ayaan soo gelin doonaa. Waayahay muuqaaladu sida ay isugu xigaan ayaad u soo gelin doontaa. Qaab dhammaantoodba markaad rabtid inaad soo wada gelisid saasaad hal mar u highlight garaynaysaa. Open baad siin doontaa marka. Open markaad siisid muuqaaladii saas isugu xigi doonaan. Haddii aan halkan eegno haddii kale ay isku xigi waayaanna ka koobaad baad soo qaadi doontaa muuqaalka koobaad qaybtaad timeline-ka ayaad ku soo drag garaynaysaa. Halkan waxa weeyaan zoom out ayaan leeyahay. Muuqaalka labaad ayaan dooni doonaa. Muuqaalka labaad ayaan soo gashan doonaa. Muuqaalka labaad isagana dragging baan leeyahay waa soo jiiday halkaasaan dhigi doonaa. Waayahay muuqaalka saddexaad ayaan soo gelin doonaa isagana halkaas ayaan dhigi. Waayahay muuqaalka afraad ayaan doonayaa marka kii afraad ma soo qaaday isagana halkaas ayaan dhigi. Marka muuqaalka ugu dambeeya oo shanaad ayaan isagana soo qaaday isagana xaggaas ayaan dhigaya. Marka waxaan rabnaa shantaa muuqaal aynu hal muuqaal ka soo wada saarno. Marka haddaan hadda soo dhigo qayb kastaba gaarkeeda ayay u highlight garaysan tahay. Waxaa isla socda waa codkii iyo muuqaalkii. Marka inagu waxaan rabnaa inaan kala saarno oo dhawaaqaas iyo codka inaan ka saarno keliya muuqaalka keliya aynu ku soo reebano timeline-ka. Si aan taa u samayno haddii uu saanka yahay oo qaybaha uu yahay waxay noqonaysaa shaqo dheer mid kastaba inaad gaarkiisa aad u kala reebtid. Taasoo kale marka ay waqti badan bay naga lus garaynaysaa. Si aan taa u xalino muuqaaladana aynu mar u wada edit garayno hal mar u edit garayno waxaynu highlight garaynaynaa dhammaan muuqaalada markaynu highlight garayno right click ayaan leeyahay. Right click markaad siisid muuqaalkii markaad saa u highlight garaysay mid ka mid ah ayaad right click siinaysaa. Deetana waxaad dooran doontaa qaybta next ay ku qoran tahay. Next dhammaanba way ku wada midaynaysaa oo halkaan magac ayaan ula bixi doonaa. All ayaan ula bixi doonaa. Dhammaan muuqaaladii oo dhan waxaa la isugu geyn doonaa hal layer haddii ay cod tahay iyo haddii ay tahay waxa weeyaan muuqaalba. Marka waxaan ku dhufan doonaa isla right click ayaan leeyahay. Waxaan rabaa codka iyo muuqaalka inaan kala saaro oo link-ka u dhaxeeya inaan ka saaro. Marka waxaan ku dhufan doonaa unlink halka ay ku qoran tahay. Marka saas ay u kala hareen. Muuqaalkiina gaarkiisa u taagan yahay, codkiina gaarkiisa u taagan yahay. Labada kii aanan u baahnayn ayaan iska saari doonaa. Marka hadda inagu waxaynan u baahnayn waa codka. Codkan iska delete garayn doonaa. Muuqaalka oo keliya ayaa inoo soo baxaya. Waxaan rabnaa muuqaalka inaynu kalarka uu hadda u muuqdo inaynu wax ka beddel ku samayno. Si aynu kalarkiisa u beddelno waxaan tegi doonaa qaybta Windows-ka. Waxaynu ka sii dooran doonaa qaybta ay ku qoran tahay Lumetri Color. Qaybtaas aad tigta soo saaran doontaa. Qaybtan palette box-ka ama qaybtan docdan bidixda ayuu ku iman doonaa. Qaybta markuu inoo yimaado xaggan aan hore u yar durkin si aan program monitor-ka si fiican u arki karo. Waayahay qaybtanna xaggaasaan u durkin timeline-ka isagana si fiican ugu arko. Waayahay qaybta markay inoo soo baxday waxaa ugu horeeya qaybtan loo yaqaano basic correction. Basic correction isku waa waxyaabahan halkan inoogu xusan. Waxyaabahan ayaynu habba qaybta aynu rabno aynu kaga kordhin karnaa. Qaybahan aynu markaa isticmaali karnaa haddii black u baahannahay habba muuqaalku suu ku salaysan yahay. Haddii aan rabno qayb default ahaanana qaybtan aan ka sii dooran doonaa oo qaybta ay ku qoran tahay input loot ayaad ku dhufan doontaa. Waxay ka dhigan tahay input loot markii kamarada la duubayo wax filter ah looma isticmaalin. Markaas oo kale oo kamarada waxaan filter ahaan loo isticmaalin ay bila filter tahay marka la duubayay taasoo kale waxaad soo gashan kartaa loot baad soo gashan kartaa oo qaybta markaad tigaysaa qaybta ugu horeysa allages default ayaad ku dhufan doontaa. Qaybtaas markaa dhammaanba waxay ku kalareynaysaa muuqaalkii oo dhan bay wax ka beddel ku samaynaysaa. Marka hore sidan buu ahaa markii kalena waa kan qaabka aynu ugu qurux badnaaday.
oo dhammaantiiba hal mar ayaan batchkaa soo saaray ama filterkaa soo saaray then qaabkaas ayuu isugu kay bedelay. Qaybahan kalena waad isticmaali kartaa oo qayb way kasii duwan tahay oo qaybkaa doontaad isticmaali kartaa. Inagu hadda kaasaynu u deysan doonaa Allegaska. Markaa qaabkaasu muuqaalkii uu hal mar inuu edit galaysan yahay. Waayahay intaan marka ka nimaadno waxaan rabnaa muuqaalkii inaynu saarno background music oo hadda waxa weeye muuqaalkii dee wax effects ah ma laha. Marka waxaan rabaa inaan dhawaaq ama cod soo saaro. Control Plus ayaan siinayaa oo sidii muuqaalka aan u soo gashanayay ayaan codkana u soo gelin doonaa. Marka cod ayaan soo saari doonaa. Okay. Waayahay codka ayaan soo gelin doonaa backgroundka isagana drag baan leeyahay halkaasaan dhigi doonaa marka waan soo shidi markaan soo shido codka saas ugu soo gelin. Marka haddii aynu eegno muuqaalkii codka waxa badan muuqaalka badan si aynu codka u soo badsano halkan tegi doonaa codka waxaa leeyahay Control Plus C Control Plus V ayaad leedahay marka copy baa kaaga samaysmay qaybtanaad markaa dhexdaasaad dhigi qaybtana waynu soo yareynaynaa marka waxay ka dhigan tahay halkaasuu kasii bilowmi doonaa mar walba uu bo'o. Marka hadda labadii way isleegyihiin waa saasay isku leegyihiin. Intaa markaan ka imaado waxaan rabnaa aynu aragno muuqaaladu waa muuqaalo aynu isku keenay meesha ay labada muuqaal isaga imanayaan baan rabaa inaan u sameeyo wax loo yaqaano transitionkuna waa labada muuqaali muuqaalka soo gelaya iyo muuqaalka baxaya waxa u dhexeeya ayaa loo yaqaanaa ama inta badan waxaa loo dhexeysiiya transition marka waa isgoyska labada muuqaal. Taasoo kale si aynu u aragno isgoysyadii double click baan siinayaa qaybtan ayaan double click siinayaa then waxaa ii soo baxaysa muuqaaladu sidiisii hore u ahaa marka halkaas waxaad ka saari doontaa labada muuqaal ay iska jarayaan transition baan ka saari doonaa. Si aan transition u aragno waxaan tegi doonaa qaybtaa yar ayaad soo furan doontaa deetana effect ayaad kasii dooran doontaa. Haddaanay halkaa effect kugu xusnayn Windows bay tegi doontaa tigta ayaad soo saari doontaa qaybta effect ay ku qoran tahay marka qaybtan ay noo soo bixi doontaa halka ugu hooseysa tegi doonta ay ku qoran tahay video transition qaybtaasaan soo furi doonaa. Qaybahaas oo dhan waad tijaabinaysaan oo qaybahan oo dhan waa transitions kala duwan marka idinka ayaan idin deyni doonaa oo tijaabin doona. Haddaan hadda slide-kaas oo kale soo qaato ama qaybta page oo kale aan soo jiido halkaa dhex dhigo okay baad leedahay deetana aynu soo aragno habkaas ayuu u shaqeynayaa transitionkaasi. Haddaynu qaybaha kale aynu soo aragno slide oo kale kan oo kale tan soo qaado isagana okay ayaan leeyahay isaguna qaabka ayuu u soo baxayaa kaasoo kale iska deysan doonaa. Kuwan kalena cross zoom ayaan isticmaali doonaa zoomingkaasaan isticmaali doonaa halkaas ayaan isagana dhigi doonaa. Okay wave baan kale isticmaali doonaa kuwaasoo dhan idinkuna waad tijaabinaysaan qaybta wave ayaan isticmaali doonaa. Okay baad siin doontaa saasaad u kala duduwi doontaa oo transitionskuna qaabkaas hadda wave oo kale haddaynu eegno cross zoomkii weeye qaybtaasi oo uu soo dhowaanaya qaybtan kale haddaynu eegno isaguna qaabkaasuu sameynaya qaybtan ugu dambeysana haddaynu eegno isaguna saasuu sagsab isoo dhameeya marka saasuu markaa transitionskuna u shaqeynaya. Haddii aynu eegno aynu Control Plus S waa laynagu apply gareynaya haddii muuqaalkii soo furno manankan koona transitionku oo kuwa qaabtaa waa sameyn marka muuqaalkii saasaynu u edit gareynay muuqaalkii waxaan rabnaa hadda waynoo dhammaystiran yahay inaan export gareyno ama aynu MP4 aynu ka dhigano waxaad tegi doontaa halka ay ku qoran tahay export hadda edit bay noo joogtaa export haddaan halkaas active ku ahayna waxaad tegi doontaa qaybtan file baad kasii dooran doontaa export then media ayaad ku dhufan doontaa ama si sahlan qaybta export ayaad dooranaysaa. Export markaad dooratid waxaan xusi doonaa qaybaha muhiimka ah
export qaybta ugu horeysa horta waa file name-kii, qaybta ku xigta ayaa muhiim ah oo location-kii uu kugu save gareynayaa. Marka Premiere-ku folder default ah buu samaystaa. Haddii aanad rabin folder-ka inta badan folder-ka waa la waayaa ama meel fog ayuu kaa geyn doonaa ama meel aad adigu cayimatay ayaad dhigi doontaa oo desktop-ka oo kale meel baad cayiman doontaa. Meeshaas ayuu markaa inagu save gareyn doonaa. Hadda muuqaalka waxaan u bixin doonaa color correction ayaan leeyahay. Color correction markaan siiyo color correction-kii waxaan leeyahay save ayaan leeyahay. Deetana halkan wuxuu kuu soo qaban doonaa h.265 ayaa kuu soo qaban doonaa. Qaybtaasna waa qayb isagu kuu doori doono default ah. Haddaanu kuu doorinna qaybtaas aad dooranaysaa. Qaybta kalena high bright ayaad ka dhigi doontaa oo isaga default ahaan kugu doori doona. Waxba kama bedelaysid. Export baad leedahay markaasuu kuu export gareynayaa. Encoding ayuu samayn doonaa. Dan export-gii ayuu ku xijin doonaa. Hadhowna waxaad ka raadin doontaa meeshii aad soo cayimatay ood soo dhigatay. Markaa sidaa u sameeya. Salaamu calaykum.